بسم الله الرحمن الرحيم وصباح نمو أربعة أفرت بشة فبراير سنة كالبكون لباتنية لح أو كوبهجن لحية طبانك بشة شعبان سنة كون أفر بقول أفرتنية تضبط تاريخ الهجرية كسو دوادا مركله هي برامجكي حلشة ورركة قضبضة ساكي برامجك أن إذن كوغهيننا وحا كمدا madaxweyne Erdogan oo si cad u sheegay in Turkigu uu difaaci doono midnimada dhuleed ee Soomaaliya kadib kulan xalay ay ku yeesheen isaga iyo dhaxal sugaha Sacuudiga magaalada Riyadh waxay si adag u cambaareeyeen aqoonsiga Israa'iil ee Somaliland NATO oo diyaarinaysa ciidamo ilaalaha oo la geeyo gobolka Arctic-ga oo ay ku taal jasiiradda Greenland oo Trump uu damacsanaa inuu la wareego haddaba ma waxa dhici doona iska horimaad dhex mara dalalka gaashaanbuurta reer galbeedka Israa'iil oo isku diyaarinaysa una tababaranaysa sidii ay uga hortagi lahayd 2,000 oo gantaal oo Iiraan ay ku soo garaaci karto haddii dagaal uu ka qarxo gobolka bariga dhexe ra'iisul wasaarihii hore ee waddanka Ciraaq Nuuri al-Maliki ayaa mar kale ku celiyay inuu sii wadi doono musharaxnimadiisa inkastoo Trump uu ka digay in mar kale ninkaasi uu ku soo laabto hogaaminta Ciraaq dhammaan wararkan iyo waliba qodobo kale oo faahfaahsan iyo wixii warah ee soo kordhay intaynu hawada ku jirno ayaan idinkugu soo gudbinaynaa barnaamijka xulashada wararka ula socoto oo hesho wararkan barnaamijyada iyo macluumaadka aynu halkan ka soo gudbinayno haddii aad ku cusub tahay baraheena bulshada amaba horay aadan ugu xirnayn hadda ku soo biir waadna ku mahadsantihiin daawashada barnaamijka saaka waxaynu ku bilaabaynaa NATO oo ay suurtagal tahay ciidan ahaan inay isku dhacaan dhexdooda Mareykanku waa quwadda ugu weyn ee NATO isla markaasna ciidanka ugu badan leh sidoo kalena bixiya miisaaniyadda lacageed ee ugu badan haddaba waxaa soo baxay war sheegaya in NATO ay diyaarinayso ciidan la geyn doono aagga la yiraahdo Arctic waa badda barafka badan ee baddu ay fadhidaba jasiiradda Greenland ay ku taal haddaba aynu eegno warkii ugu dambeeyay abuurta laga qoray isbahaysiga NATO ayaa ku dhawaaqay in ay bilaabeen qorsheynta howlgal cusub oo lagu xoojinayo ammaanka gobolka Arctic-ga kadib markii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu ku dooday sheegashadiisa ku aadan Greenland inay salka ku hayso ilaalinta amniga gobolkaasi afayeen u hadlay taliska sare ee NATO ee Europe Martin O'Donnell ayaa sheegay in howlgalka cusub oo loogu magac daray ilaalada Arctic-ga uu yahay mid lagu xoojinayo kormeerka iyo dabagalka amniga isla markaasna uu kordhin doono joogitaanka NATO Arctic-ga iyo waqooyiga fog ha yeeshee ma uusan bixin faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan qaabka howlgalka ama waqtiga rasmiga ah ee la bilaabayo howlgalka ilaalada Arctic-ga ayaa la sheegay in uu la mid yahay howlgallada kale ee NATO ka fuliso badda Baltic-ga iyo sidoo kale jiidaha bari ee isbahaysiga waxaana loo arkaa mid ka mid ah tillaabooyinka lagu xoojinayo amniga aagga Arctic-ga arrintan ayaa sidoo kale waxaa lagu tilmaamay mid ka mid ah sababihii uu madaxweyne Donald Trump horay u muujiyay rabitaankiisa ah in Mareykanka uu ku darsado dhulkiisa Greenland ha yeeshee Trump ayaa markii dambe waxa uu bedelay luuqadii uu ku hadli jiray gaar ahaan suurtagalnimada in xoog lagu qabsado Greenland oo ah gobol ismaamulaha oo ka tirsan dalka Denmark isla markaasna xubin ka ah NATO hadalada Trump ee la xiriira Greenland ayaa sababay mid ka mid ah xiisadihii ugu halista badnaa ee soo wajahan NATO tan iyo markii la aasaasay sanadkii 1949 madaxweynaha Mareykanka ayaa sidoo kale xusay in la gaaray qaab heshiis horudhac ah oo uu la galay xogayaha guud ee NATO Mark Rutte intii uu socday shirkii dhaqaalaha adduunka ee Davos inkastoo aan la faahfaahin heshiiskaasi waxa uu ku aadan yahay marka arrintan waxa la leeyahay waxay keeni kartaa laba qodob in Trump uu ka tanaasulo Greenland iyo la isku dhaco maxaa yeelay Mareykanku waxay ku andacoonayaan jasiiraddan Greenland Ruushka iyo Shiinaha ayaa laga yaabaa inay saldhig ka samaystaan laakiin waxaa xusid mudan Mareykanka ciidamada ka jooga hadda Greenland laakiin waxay ku joogan fasaxa maamulka Greenland iyo dawladda waddanka Denmark
ciidanka marka dadka arrimahan ay ka faallooda waxay leeyihiin waxaa loogu talagalay in gobolka la geeyo oo markaa la yiraahdo Mareykanka maxaad uga baahantahay inaad meeshaan timaadid ciidamada ka jooga anagoo neytaabaa joogna annagana amniga sugayna marka ma lagu baahna marka waxa leeyahay waa ka hortag arrintan Trump wuxuu yeeli doonaa waynu arki doonaa arrinkaasi wahagaag xagga Ciraaq aynu eegno barnaamijyadeennii ugu dambeeyay toddobaadkii hore waxaan idiin soo gudbinay Nuuri al-Maliki horey wuxuu u soo noqday ra'iisul wasaaraha Ciraaq Trump baa wuxuu leeyahay ninkan hadduu mar dambe soo sharaxo Ciraaq waxaan ku joojinayaa taageerada laakiin ninkan wuxuu leeyahay aniga ma ka laabanayo in aan issharaxo haddaba aynu eegno wararkii ugu dambeeyay amuurtan Nuuri al-Maliki musharaxa ra'iisul wasaaraha Ciraaq ee ka socda isbahaysiga Shiicada ayaa sheegay in haddii uu ka noqdo musharaxnimada kadib hajabaadda Mareykanka ay markaasi ka dhigan tahay qatar weyn oo soo food saarta madax banaanida Ciraaq waraysi uu siiyay telefishinka Al-Sharqiya fiidnimadii xalay Maliki wuxuu yiri hubaal waa ka noqon doona haddii arrintaasi ay qatar gelinayso danaha dalka laakiin ka noqoshadu hadda waxay qatar ku tahay madax banaanida Ciraaq waxay macnaheedu tahay in aan burburino go'aanka hay'adda qaranka wuxuu carabka ku adkeeyay in uu sii wadi doono musharaxnimadiisa ilaa iyo dhamaadka isagoo tilmaamay in isbahaysiga siyaasadda kaliya ay go'aansan doonaan in isaga uu noqdo musharaxa iyo in markaasi ay doortaan cid kale haddii ay go'aansadaan in ay bedelaan musharaxnimadeeda waan soo dhaweynayaa weliba gacmo furan ayuu hadalkiisa ku sii daray Nuuri al-Maliki toddobaad kadib markii la magacaabay in uu noqdo musharaxa isbahaysiga siyaasadda oo ah kooxaha ugu waaweyn ee baarlamaanka ee Shiicada Iiraan aad ugu dhow sabtidii wuxuu mar kale ku celiyay taageeradiisa ku aadan inuu sharaxi doono horay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa waxa uu sheegay in uu aad ugu xun yahay haddii loo doorto inuu hogaamiyo Ciraaq Nuuri al-Maliki waxaana uu ku hanjabay in Mareykanku ay joojin doonaan taageerada Ciraaq ay siiyaan haddii xukunka dib ugu soo laabto Maliki Ciraaq waxay la leedahay xiriir aad u adag Mareykanka sidoo kalena Iiraan ayay xiriir la leedahay dakhliga shidaalka ka soo baxa waxaa lagu shubaa bangiga dhexe ee New York iyadoo arrintaasina ay soo socotay ilaa iyo 2003 waxaana shirkadaha Mareykanku ay maalgashi ballaaran ku sameeyeen qaybta shidaalka ee waddanka Ciraaq 90% dakhliga dawladda Maliki wuxuu ra'iisul wasaare soo noqday 2006 ilaa 2014 waxaana markaasi uu goobjoog u ahaa bixitaankii ciidamada Mareykanka sidoo kalena rabshadihii qabaa'ilka iyo korokicii kooxda Daesh intii aan la jibin markii dagaalku uu ka bilowday waddanka Ciraaq iyo waddanka dariska la ah ee Suuriya wahagaag ninka markuu wuxuu leeyahay aniga go'aankayga waxa iska leh isbahaysiga aan ka tirsanahay laakiin Trump iyo Mareykanka midna shuqul kama leeyahay maxay yeeli doonaa marka waxa la aaminsan yahay isbahaysigan Shiicadu inay yihiin dad aad iyo aad mowqif adag waxa suurtagal ah leeyahay inay ku adkaystaan ninka inay sharaxaan laakiin waxa iman karta markay eegaan danta Ciraaq ugu jirta Mareykanka inay markaas qiimeeyaan arrintaasi oo ay musharax kale magacaawdaan laakiin ilaa hadda al-Maliki wuxuu leeyahay anigu musharax baan ahay waa qodobkaas halkaas inay kaga gudubna waxaan u gudbaynaa goordhow madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo sheegaya in Turkiga uu taageeri doono madax banaanida Soomaaliya wararkan oo warbaahinta Turkiga iyo tan Sacuudiga ay wax ka qortay iyo sidoo kale dhaxal sugaha boqortooyada Sacuudiga iyo Erdogan oo iyaguna bayaan soo saaray kaga hadlay arrimaha Soomaaliya waxaan kaloo eegaynaa warbixin la xiriirta Israa'iil oo isku diyaarinaysa suurtagalnimada 2,000 oo gantaal Iiraan inay ku soo garaacdo tababarro baa la sameynaya iyo sidii looga hortagi lahaa haddii ay dhacaan weerar caynkaasi oo kala intaan u gudbin wararkaas aynu ku hakanno qadar xayeysiina wali waxaad la socotaan barnaamijkii xulashada wararka oo subaxnimadan arbacada toos idinkaga imaanaya istuudiyaha iyaga koowaad barnaamijyadeena waxaad ka heli kartaan bogagga bulshada ee internetka sida YouTube-ka, Facebook-ka, Twitter-ka iyo Telegram-ka warbixino qoraal ah warar fahlooyin iyo macluumaadyo kale waxaad ka heli kartaan bogga internetka aynu ku leenahay ee www.hbnonlinetv.com ku xirna HBN oo ka dhigo wehelkaaga wararka hagaag xaaladda bariga dhexe waxay qarka u saaran tahay dagaal inkastoo
rajo ay jirto in jimcaha wadahadalo ay yeeshaan wufuud ka socota Mareykanka iyo Iiraan. haddana dhanka Israa'iil marka la eego abaabul baa ka socda. warbaahinta Israa'iil waxay sheegaysaa maalmihii la soo dhaafay inay socdeen tababar la xiriira 2,000 oo gantaal inay Iiraan ku soo weerari karto Israa'iil. haddaba sidii looga hortagi lahaa loola macaamili lahaa burburka ay geysanayaan ayaa waxaa laga sameeyey tababaro. aynu eegno warkan iyo arrimaha la xiriira. wahagaag warbaahinta Israa'iil ayaa ku waramaysa in ciidankoodu ay sameeyeen tababar military oo ballaaran oo lagu tijaabinayo sida loo wajaho weerar ballaaran oo gantaal ah oo ka yimaada Iiraan, kaas oo lagu qiyaasay ilaa 2,000 oo gantaal oo lagu beegsanayo magaalooyinka waaweyn. wargeyska Maarif ee ka soo baxa Israa'iil ayaa daabacay warbixin ciwaankeedu uu yahay 2,000 oo gantaal oo lagu garaacayo Israa'iil, cabsi laga qabo duqeyn culus oo Iiraan ku qaado xarumaha dadku ku badan yihiin. warbixinta ayaa faahfaahin ka bixisay dhoolatus ay sameeyeen ciidanka Israa'iil si ay uga jawaabaan weerar ballaaran oo caynkaasi ah. sida wargeyska uu sheegay, taliyaha difaaca rayidka ayaa fuliyey tababarkii ugu ballaarnaa oo ay sameynayaan qaybta taliska difaaca rayidka, waxaana lagu soo waramayaa in lagu tijaabiyey gurmadka, howlaha samata bixinta, daryeelka dadka ku dhaawacma burburka ballaaran. tababarkan ayaa ka dhacay saldhig ciidan oo ku yaala deegaanka liirada Zakim ee koonfurta Tel Aviv. warbixinta ayaa intaasi ku dartay in 100 askari iyo saraakiil ka tirsan guutada samata bixinta ay ka qayb galeen dhoolatuskan, kaas oo loo ekeysiyey weerar gantaal ah oo Iiraan ka imaanaya laguna beegsanayo xarumo dadweyne oo waaweyn. dhoolatuskan ayaa bilowday abaar 2 habeenimo ee xalay, iyadoo la jilayay burburka dhismayaal dhaadheer, munaarado dumay iyo khasaare baahsan oo dhacay. ilaa iyo waqtiga la qorayay warbixintan, ciidanka Israa'iil kama aysan hadlin faahfaahin dheeraad ah oo la xiriirta tababarkan, mana soo saarin bayaan rasmi ah. si kastaba ha ahaatee, ilo waleed oo military ayaa sheegay in tababarkan uu yahay kii ugu muhiimsanaa ee taliska difaaca rayidka uu sameeyo tan iyo markii ay kordheen xiisadaha Israa'iil iyo Iiraan, inkastoo la tilmaamay in uu ahaa tababar horey loo qorsheeyey. Israa'iil ayaa marar badan ku celisay in wadahadallada Mareykanka iyo Iiraan ay tahay in lagu daro barnaamijka gantaalada Iiraan iyo taageeradeeda ururada gobolka, halkii lagu koobi lahaa arrimaha nuclearka oo keliya. dhankeeda, Iiraan waxay ku hanjabtay in ay bixin doonto jawaab ballaaran oo aan horey loo arag haddii la weeraro, xitaa haddii weerarku uu noqdo mid xadidan, iyadoo ku eedeysay Mareykanka iyo xulafadiisa inay cadaadis iyo cunaqabatayn u adeegsanayaan kicinta qalalaasaha gudaha. arrintu marka waxay maraysaa halkaas. Israa'iil waxay leedahay waxaa suurtagal ah 2,000 oo gantaal in la ku soo rido. hadda 2,000 oo gantaal Israa'iil sidee ula macaamili kartaa baa la isweydiinaya. waxay la macaamili weyday ama la tacaali weyday dhowr gantaal oo lagu soo riday inta dagaalkii bishii Juun uu socday. arrintu marka meel adag bay maraysaa, weliba xiisaduna cirka ay ku shariiran tahay. shalay ilaa xalay warar waaweyn baa dhacay. doonyo Iiraan ay leedahay waxayna ogeen inay baacsadeen marka Mareykanku uu leeyahay waa kuwa shidaalka qaada. saacada kadib waxaa la soo riday diyaarad daroon ah oo la sheegay inay ku dhawaatay markabka diyaaradaha xambaaraha ee Abraham Lincoln ee Mareykanku uu leeyahay. Iiraan waxay dalbanaysaa wadahadaladii lagu waday inay ka dhacaan Istanbul in loo soo wareejiyay magaalada Masqad ee waddanka Cumaan. dad badan marka waxay leeyihiin arrintan waxay la xiriirtaa Iiraan inay gorgortanka muujinayso inaysan jilicsanayn. macnaha inay tiraahdo diyaarad bana la ka soo riday, waa aarsanaynaa, wadahadaladana hal la bedelo. waxaa loo arkiraa baa leeyahay marka Iiraan inay isku muujinayso inay tahay cidda aan doonayn oo keliya heshiis in la gaaro, laakiin ay isku muujiso inay gacanta sare leedahay. arrintu marka meel adag bay maraysaa. waaye qodobkaas halkaas aynu kaga gudubno. sheekada ugu dambaysa aan u gudbaynaa. dabcan sidaad kula socoteen wararka iyagii ugu dambeeyey, madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa xalay ku hoday waddanka Sacuudiga. maanta wuxuu u safrayaa magaalada Qaahira, halkaasi oo kula kulmi doono madaxweynaha Masar Cabdulfataax Siisi. xalay wadahadallo ayay yeesheen Erdogan iyo dhaxal sugaha boqortooyada Sacuudiga Maxamed bin Salmaan. wadahadalladu laba qaab bay ahaayeen. markii hore Erdogan iyo Maxamed bin Salmaan labadooda kaliya ayaa qol isku xirtay.
waxaa lagu jiray muddo dheer waxyaalo badan baa laga wada hadlay baa la sheegay markii ay soo dhammaysteenna heshiisyo difaac heshiisyo kala duwan kuwa dhaqaalaha arrimaha iskaashiga waxyaalo badan baa la galay wasiiradii marka qolo kasta ka socotay heshiisyaa la galgalayay kadibna waxaa lasoo saaray marka bayaankana arrimo kala duwan baa looga hadlay xaaladda Gaza xiriirka Sacuudiga iyo Turkiga xiisadan ka aloosan gobolka bariga dhexe arrinta Iiraan Gaza Soomaaliya Suudaan meelo kala duwan marka looga hadlay anoo marka waxaan soo qaadanaynaa arrimaha Soomaalida wixii looga hadlay waxa kale oo warbixintan ku jirta madaxweynaha Turkiga oo wareysi gaar ah siiyay wargeyska leerada Sharq al-Awsat ee Sacuudiga laga leeyahay laakiin fadhigiisu uu yahay magaalada London haddaba waxaynu ka hormaraynaa bayaanka madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan iyo dhaxal sugaha boqortooyada Sacuudiga Mohammed bin Salman ayaa si adag u cambaareeyay tallaabada Israa'iil ku aqoonsatay Somaliland kadib kulan xalay ay ku yeesheen caasimadda Sacuudiga ee magaalada Riyadh bayaan wadajir ah oo laga soo saaray kulanka kadib waxaa lagu xaqiijiyay in Turkiga iyo Sacuudigu ay si buuxda u taageerayaan midnimada madax banaanida iyo wadajirka dhuleed ee Jamhuuriyadda Soomaaliya isla markaasna ay diidan yihiin tilaabo kasta oo hal dhinac ah oo wiiqaysa qarannimada Soomaaliya docda kale madaxweyne Erdogan ayaa wareysi gaar ah oo uu siiyay wargeyska Sharq al-Awsat ayaa waxa uu sheegay in mowqifka Turkiga ee arrintan uu yahay mid cad oo waxba aan iska bedelin wuxuu sheegay in intii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud booqashada uu ku joogay Turkiga dhamaadkii bishii hore in ay si aan mugdi ku jirin oo cad u muujiyeen aragtida ku aadan arrintan wuxuu yiri waxaan adkeynaynaa ilaalinta midnimada Soomaaliya mar walba oo ay tahay mid u leh mudnaanta koowaad ee Turkiga waxa intaasi uu ku daray waxaan jeclaan lahaa inaan mar kale hoosta ka xariiqo in mowqifkayagu aanu isbedelin go'aanka Israa'iil ay ku aqoonsatay Somaliland waa mid sharci darro ah annagana waxaan u aragnaa mid waxba aysan ka jirin Turkiga wuxuu sii wadi doonaa difaaca buuxda ee wadajirka dhuleed ee Soomaaliya si waafaqsan qaramada midoobay madaxweynaha Turkiga ayaa sidoo kale xusay in go'aamada la xiriira mustaqbalka Jamhuuriyadda Soomaaliya iyo Somaliland oo uu ku tilmaamay gobol sida uu yiri in lagu saleeyo rabitaanka guud ee dhammaan shacabka Soomaaliyeed isla markaasna aanay ahayn kuwa ay dalal shisheeye si gaar ah u go'aamiyaan Erdogan ayaa ka digay in tilaabada Israa'iil ay tahay sida uu yiri isku day lagu carqaladeynayo xasiloonida geeska Afrika isagoo yiri dawladda Netanyahu oo xasuuq ka geysanaysa Gaza kadibna weerar ka fulisay Lubnaan Yemen Iiraan Qatar iyo Suuriya hadda waxay dabacsan tahay in ay qalqal geliso geeska Afrika tani waa qatar weyn oo aan ku ekaan doonin geeska Afrika oo kaliya balse saameynaysa guud ahaan qaaradda Afrika madaxweynaha Turkiga oo hadalkiisa si ambaqaadaya wuxuu boogaadiyay mowqifyada degdeg ah ee dalalka gobolka gaar ahaan Sacuudiga iyo Masar kuwaasi oo si cad u diiday aqoonsiga Israa'iil ee Somaliland isagoo tilmaamay in tilaabo kasta oo aan gacan ka geysan xalinta khilaafaadka gobolka ay sii hurinayso xaaladda iyo xiisadda dhinaca kale madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan wuxuu xusay in ururo caalami ah sida midowga Yurub ururka iskaashiga islaamka ee magaciisa loo soo gaabiyo OIC iyo jaamacadda Carabta iyo sidoo kale mas'uuliyiin uu ka mid yahay gudoomiyaha guddiga midowga Afrika ay muujiyeen diidmada go'aankan wuxuu sheegay in Turkigu muhiimad weyn uu siinayo hadalladaas oo adkeynaya madax banaanida iyo wadajirka dowlad ee Soomaaliya kulanka Riyadh ayaa lagu soo gabagabeeyay ballanqaad ku saabsan si xoojinta iskaashiga diblomaasiyadda ee Turkiga iyo Sacuudiga si loo difaaco midnimada Soomaaliya loogana hortago tillaabooyin lagu wiiqayo xasiloonida gobolka warbixintaasna waxay ugu dambeysay barnaamijkii inta ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkii xulashada wararka waana ku mahadsantihiin daawashada barnaamijka si aad ula socoto wararkan barnaamijyadan iyo macluumaadka aynu soo gudbino haddii aad ku cusub tahay baraheena bulshada amaba horay aadan uga xirnayn hadda ku soo biir waa inoo barnaamijka xiga insha Allah inta ka horeysa